Hi guys, kusoo dhawaada janaalka. Maanta videoga wuxuu yahay sida iskaga baabiyay finanka ama nabraha sida u taqaanaan. Maalin horaad waxaa soo sameeyay video ku saabsan dhibaatooyinka aan kala kulmay. Sidoo kale waxaan dhahay hoos igu soo qor hadaa u baahan tahay inaan idin soo sameeyo sida la iskaga baabiyay finanka ama nabraha sida u taqaanaan. So dada ay soo qoreen inay u baahan yihiin so ani videoga inaan soo boobsiyaa rabay laakiin aad ugu xumahay maadaama aan dhahay waa soo boobsiina haddana ma soo boobsiinin. laakiin muhiimada ugu dambeyntii waa soo sameeyay inta aan guda gelin mawduuceena ka hor haddaa janaalka ku cusub tahay subscribe dheh si aad uga mid noqoto qoyskeena sidoo kale gambaleelka taab si aad u noqoto dadka ugu horeeya ee videoga fiirsanayo. Okay, sidee nabraha loo baabi'iyaa? inta aan nabraha baabi'in ka hor horta waa inaan ogaanaa sababaha keenayo isheeg cudurka maxay tahay sababaha keenayo nabraha. So hadda isheeg isku dayna inaan baabi'ino haddana aan ogeyn sababtay usoo baxeyso yani shaqada aan sameynayno waxba ma tareyso maxaa yeelay waxaa isku dayaynaa inaan baabi'ino yani inama ogin waxaa keenayso waa baabi'inayna waxaa isku dayaynaa inaan baabi'ino wax cusub soo baxayo sidoo kale sidaasay ku soconaysaa sirikal. So waxaa ka hadlayaa 3 qodob ayaa sababa sida ani yani u arkay ama aan dhihi karo inta aan guda gelin ka hor mid yariis aan idin ogeysiiyo. Horta aniga shaqsi ahaan ma ihi qof isheeg dhakhtar ah ama dhakhtarka wejiga ama isheeg jirka waxyaabahaas intaba ma ihi laakiin waxaa idin la wadaagayaa yani experience aan leeyahay. hadda ka hor nabra igu aali jiray sida idin kugu sheegay videoga hore haddaad arkin hadda kuu sheegaa nabra lahaan jiray. So marka nabra aad ii dhibay so sida iskaga baabiyaan aan ku hadlaa iyo maxyaabaha sababa aan u arkay markasta yani sanadada la soo dhaafay dhan so waxa isku dayaa maxay tahay sababta keenayso sida loo baabi'iyaa waxyaabahaas inaan barta isku dayaa aniga shaqsi ahaan yani aniga le wajigayga le isheeg meel kale kama soo baran laakiin wajigayga le ku baranay. So marka iqtar ma ihi taas muhiim waa inaa ogaataan. Okay, maxaa sababa nabraha? أنا ها waxaa u kala qaybiyay 3 tan koowaad ugu weyn waxay tahay nadaafad la'aan. labaad shay qalad ah isticmaashay kareen qalad oo wajiga nooc loogu talagalay aad lahayn isticmaashay ama foundation ama yani wax oo adiga wajiga nooca leedahay loogu talagalin ama xasaasiya ama waxba ka qabto. tan saddexaad waxaa waaye dhibaatooyin nafsi يعني stress hurdo la'aan dhibaatooyin yani oo jirka oo haysan laakiin yani maskaxiyan ku haysto ayadana sidoo kale nabra ayay keentaa. So marka tan koowaad aan ka hadlaa nadaafad la'aanta. nadaafad la'aanta aan ka hadlaayo maxay tahay? nadaafad la'aanta aan ka hadlaayo maaha wajigaaga inaa isheeg aadan nadiifin laakiin tan meesha taagana waxay tahay sidee u nadiifinaysaa maxay tahay isheeg waxaa ku nadiifisid sidees u nadiifisaa. Okay, waxaa muhiim ah wajigaaga inaad si fiican u nadiifisid aan ku nadiifisid saabuun ama shaambo nadiifiyayso si fiican u nadiifiyayso. mararka qaar waxaa u maleynaa wajigeena inaan nadiifino laakiin shaambada ama isheeg saabuunka isticmaalayno si fiican ma u nadiifinayaan. nadaafadda waa aasaasi koowaad inkastoo aan leenahay wajiyo kala duwan. dadka qaarkood waxay leeyihiin waji qaleel dadka qaarkood waxay leeyihiin waji normal dadka qaarkood waxay leeyihiin waji saliid leh. ani ahaan waxaa leeyahay waji saliid leh. hadda ka hor marka oo nabraha oo isheeg oo aan haystay waxaa tagay farmashiya marka waxaa ku dhahay wajigayga saliidoo leeyahay nabrahaanan ugu yaalay yani wax iga ba'ay maaha wax kasta oo aan sameeyay bes waxay soo siiyaan shaambo iyo kareem. markaas waxay ugu dhaheen shaambada waa inaan ku dhaqdaa subaxi iyo habeenkii marka ay isheeg aan nadiifisidna kareenka marso. So marka maanta dhan shaambo wajiga ku dhaqdid ama saabuun yani oo qalala saabuunka horta aan ka hadlo saabuunka ani horta shaqsi ahaan waxaa u arkaa wuu jiraa saabuunyaal fiican way jiraan laakiin inta badan saabuunada arka waxaa marka wajiga aad ku dhaqdid camal oo dhahaan inuu wajiga nadiif ku noqdo waa camal laakiin real ma ahan. matalan haddii aad saabuun ku dhaqaysid wajiga oo wajigaaga oo lahay make up marka aad saabuunka ku dhaqdo wuxuu u maleysaa inuu nadiif kuu noqday laakiin haddii aad soo qaadatid suufka yar oo cad oo wajiga lagu xeeyo mar haddii aad soo umurtirtid waxaa arkaysaa inuusan isheeg oo nadiif ahayn.
soo marka saabuunada qaarkood waxaa umaleysaa inay wax nadiifinaya laakiin ma nadiifiyayaan. soo muhiimadana waxay tahay inaa wejiga si fiican looga nadiifiyo make upka, haddii kale muxuu yeelanaa nabro. soo aan ahaan markaas waxaa marsan jiray make upka waan istaajiyey. markaas waxaa dhaha horta make upka waa inaa ka qaataa break si aan wejiga nabra iga yaala u baabi'iyo. soo adi ahaan haddaa rabto make upkaaga waa marsan kartaa, laakiin waa in make upka marka aas ka dhaqaysid aasa fiican u nadiifisaa. mararka qaar inaa nadiifina umanayna, laakiin nadiif ma ahan. marka suufka cadaanka a ku baroobeeno waxaa arkaysaa inaysan nadiif ahayn. kan kala sameeya waxay tahay markasta oo wejiga kareem ama wax oo nabraha iga baabi'inayo aan marsanaayo waa nadiifinaya. soo markasta wejigaaga haddii aadan nadiifin inta aadan wax marin ka hor wejigaaga wixii kor saarnaa adiga bacteria leedahay oo anaga ujeedinso bacteria lama arko aslanbo. mararka qaar waxaa umaleyna wejigeena inuu nadiif yahay, laakiin ma ahan. soo markasta waxaa muhiim ah in wejiga la nadiifiyo inta aanan wax marin ka hor. taasaa waxay isa xusuusay maalin raat iskuula kasoo laabtay marka subaxii wax ma marsan anigoo yacni oo isheeg oo natural camal waa baxay iskuulka markaa kasoo laabtay waxaa qaatay si aan u arko wejigeyga yacni maxaa isheeg isbedelay. subax markaa baxayanay shaambaa ku dhaqay nadiifu ahay bes. iskuulka markaa kasoo laabtay waxaa qaatay kan oo isheeg oo make upka lagu nadiifiyo ma ahaya kan oo warqada warqada yariista biyaha make upka lagu nadiifiyo saana ku dhahay. wabacdeen waa qaat wejiga ku tiray anaa yaabeebo wejigeyga waxaan ma kur saarnaayo saakana ma nadiifiye kabaran. soo marka haddii aanan nadiifin kabaran oo isheeg oo maalinta dhan asas ku joogo ma ahan nadiifiska inaa biyo ku dhaqdid, sababtoo maanta dhan waa bis qaadanayna soo maha. soo markaa isheeg biyo ku dhaqdid يعني weli waxay leedahay, laakiin shaambada waxyaabaha wasaqday nadiifinaysaa. soo marka ma ahan biyo inaad ku dhaqdo wejiga inaad nadiifisid, laakiin muhiimad waxaa waaya inaad shaambo wax yani wasaqda qaadaya aad ku dhaqdid. so dharka oo kale for example dharka hadduu wasaq yahay biyo keliya ma lagu dhaqo, maxaa lagu dhaqaa oomo ama yani saabuun iyo waxyaabahaas. soo marka wejiga shaambo ama saabuun waxaa isheeg adiga aad jeceshahay inaad ku nadiifisid muhiim waaye. mid kaloo muhiim ah markasta markaa isticmaalaysid isheeg cream marsanaysid ama brush ku marsatid ama markaa make upka brush ku marsanaysid ama gacmahaaga markaa wax ku marsanaysid inaa nadiifisid. marka wejigaaga marka inaa wax shaqo ka qabatirtid gacmahaaga nadiifi. brushka inaa xaalaha ku marsid hadaa rabtid sidoo kale brushka nadiif ha ahaado. markasta brushyada oo isheeg wejigu isticmaashid inay nadiif noqdaan ayadana sidoo kale muhiim waaye. iyo sidoo kale meesha aad jiifanaysid yani barkinta aad jiifanaysid sidoo kale inay nadiif ahaato idina sidoo kale muhiim waaye. ka fikir yani meeqa saaca jiiftaa? qofka ugu yar 6 saac oo jiiftaa ama 7 saac, yani dadka qaarkood ka badan ay jiiftaan intaasoo saacadood. ka fikir meesha aad jiifanaysid haddiisan nadiif ahayn yani wejigaaga maxaa ku dhici karo. mid kale jirto aan isku arkay markasto yani haddii aan banaanka kusoo daaho ama banaanka aan joogo xitaa aan usoo daahayn iskuulka markaa kasoo laabta camal marka ama iskuulka inuu joogo kala kasoo qaad yani meel public hada joogo gacmaheyga haddii aan wejigeyga ku taabto yani waxaa jeclahay inaan saan sameeyo. soo markasta oo wejigeyga aan gacanta ku taabto yani waxaa iga soo baxa nabro. maxaa waay marka gacanta maxaa nabraha keenayo? gacanta marka waxay leedahay bacteria. maanta marka albaab furaysid markaa socotid kursiga fadhiisanaysid maantana yani gacmahaaga waxaa ku tataabanaysaa yani meela ku tataabanaysaa meelahaasna sidoo kale wasaq waaye. soo marka wasaqda hadaa aysan ahayn mid anaga ujeedin laakiin yani way qarsan tahay laakiin waxay leedahay bacteria. soo marka wejigaaga hadaa ku taabatid sidoo kale iyadana waxay keenaysaa nabro. hadaa marka waxaa u kala qeybiyay 3. tan koowaad waan ka hadlay. tan labaad waxay tahay isheeg shay qalada isticmaashay. shayga qaladka waxaa ula jeedaa isheeg kareem wejigaaga loogu talagalay inaa isticmaashid, foundation wejigaaga loogu talagalay inaa isticmaashid yani waxyaaba wejigaaga waxaa laga yaabaa inay xasaasiyo ku leedahay, waxaa laga yaabaa wejiga isheeg nooca aa leedahay inaasan loogu talagelin. ani ahaan hadda wejigeyga waxaa waa wejiga saliida leh. soo marka haddii aanan isticmaalin isheeg foundation wejiga dadka saliida loogu talagalay ama sidoo kale kareem wejiga saliid dadka loogu talagalay haddii aan isticmaalin ama kasoo qaad kareem oo isheeg barfuun leh haddii aan isticmaalo wejigeyga yani wuxuu sameynaa reaction. soo nabraha kasoo baxaayo waxbaa kasoo baxbaxaayo. marka aad waxaa muhiim ah in aan isticmaalno shayga wejigeena loogu talagalay. wejigeena qaleel ma yahay? dadka qaleelka loogu talagalay. saliid moo leeyahay? dadka saliid waxa loogu talagalay.
ishag normal miya dadka normalka wax loogu talagalay soo marka wajigaaga nuuciisa marka ishag shay gadanaysid waa inaad fiirisaa okay ma lagu talagalay koowaad oo nadaafad ahayd labaad oo ishag shay qalad oo la isticmaal ahayd tan saddexaad oo dhibaatooyin nafsiyeed yani dhibaatooyin nafsiyeedka ishag yani dhibaato way badan tahay stress hurdo la-aan cunto caafimaad lahayn iyo biyo la-aan yani biyo la-aan ma jirto qof kasta biyo way cabaa laakiin ma cabno biyo oo inta jirkeena loogu talagalay yani 70% wejigeena boqolkiiba 70 jirkeena wuxuu ka samaysan yahay biyo soo marka muhiim waxaa inaan biyo badan cabno si oo ishag waxyaabaha wejiga jirkeena loogu talagalay wejiga kuwashta jirkeena loogu talagalay shaqooyinka oo qabadaha soo u qabto soo marka biyaha inta caafimaad leh mararka qaar waxaa jirto cuntooyin aan cunayna laakiin cuntooyinkaas waxay saameynaysaa wejigeena marka cuntooyin caafimaad leh haddii aadan cunin sidoo kale way saameynaysaa wejiga nabraha kasoo bixinaysaa xitaa hurdo la-aan mararka qaar inay kugu keentaa laga yaaba waa intaas saddexda sabab oo aan u arkay inay nabraha keento haddana waxaa ka hadlayaa sidee iskaaga baabi'iyey nabraha horta idinma dhaha isticmaala baradho ama quso ama huruud iyo waxyaabahaas sababta waxyaabahaas ma baabi'iyaan ani hadda kahor waa isku dayay inaan isticmaalo yani marka nabraha igu yaalay waa ku daalay yani ilaa haddana waa necbahay markaasa u marsan jiraa ku dhah waa nacay sidee u baabi'iyey nabraha ani ahaan marka waxaan raacay 3 qodob ani hadda aan ka hadlayo oo nadaafada ahayd tan labaad oo ahayd sheeg sax oo isticmaalo maadaama wejigayga saliid leeyahay sheeg waxaan isticmaalaa ma isticmaalay aan isticmaali doonaa wejigayga wax loogu talagalay yani shay loogu talagalay maadaama wejigayga saliid leeyahay sidoo kale inaa ishag cuntooyin caafimaad cuno waqti fiican hurdo ishag stresska yani stress iska jiraa sidoo kale stresska yareeyo iyo biyo badan oo cabo iyo sidoo kale waxaa isticmaalay kareem loogu talagalay nabraha yani kareem nabraha dhaawacyada nabraha kaasoo gaaray caawinayo oo ishag oo yani daaweynayo somehow so markaa raaca 3 qodob hadda kasoo hadlay nabrihii way joogsadeen laakiin waxaa ugu soo haray dhaawacyada oo yani isoo gaarsiiyeen nabrihii hore so marka waxaa isticmaalay kareem la dhaho Chandni qolofkiisa waa kana yani sidaan u yaalaa Pakistan askale so marka waxaa la dhahaa Chandni ma oga hadda inaa ujeedaan si fiican I hope inaa ujeedaan Chandni sa ujeedin xataa ma ogi laakiin markasta yani waxaa soo saari doonaa ishag anaa shaashada sawirkiisa soo qaadana marka soo saara hoosna magaciisa sidoo kale oo kusoo qoraa waxaa isticmaalay kareemkan wuxuu sameynaa dhaawacyada nabraha kasoo gaaray yani oo daaweyna so marka waxaa isticmaali jiray yani isbuuci mararka qaar yani 10 maalin hal mar isticmaali jiray so ishag oo nabraha uu yani maalin kasta yani inaa isticmaashid I don't know aan weligay ma isticmaali maalin kasto so mararka qaar yani waxaa laga yaabaa inaa isticmaalay bishi hal maalin laakiin waqtiga oo nabraha iska baabi'inay waxaa isticmaalay اسبوع هالمالنا استعماله وجهك هدو سليد ليها هرطة مو فيعنو سو أنا وجهك سليد وليها صدر خد يعني ما استعمال كري لكن نبرة دو إيجا صبح يعني يشق وح إيجا صبح نصص أصارة سو يشق أو وحيو يعني أو داويو سو مرك وجهك هدو سليد ليها كان وجهك يعني أصلا سليد أصلا سليد وليها سو مرك هدا استعماشي وكاga sii dara somehow yani uu ku waxeena nabarku ka waxeena laakiin saliidas yani wuxuu u keenaa wajiga waa ogta maaragta waxyaabaha cadcadaanka wajiga gal waxyaabahaas u keenaa soo marka waxa fiican laakiin isticmaasha wajigaaga haduu saliid leeyahay kareen loogu talagalay dadka wajiga saliida leh oo yani nabarka markuu ka soo baxo oo yani daaweynayo sameesha oo soo madow iyo wax u yeelan oo yani oo waqti badan ugu oolan sababta haduu inta ka soo baxo inta ka soo baxo wajiga dhan wuxuu noqonaa waxyaabo madow inuu ku yaalo soo marka kareem loogu talagalay oo waxyaabahaas yani daaweynayo inaa heshid yani farmashiyaasha ka heli kartaa meelaha kareemyada lagu gadana ka heli kartaa sidoo kale kareenkan ani kareen caabiyo waaye soo daarta waan isticmaali kartaa daartaan waxaa isticmaali kartaan
bedelkiis aan saa jeceshahay video intaana kusoo ekeysiina waxaa rajeynaa inaan wax idinka iloobin haddii aad su-aal qabtaan haddii aad isheeg inaa wax weydiisaan aragtaan hoos ay kusoo qori kartiin waa idinkaaga soo jawaabi doonaa insha allah waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo